madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug iyo wafdi hogaaminayo ay qayb ka yihiin xildhibaano wasiiro ayaa soo gaaray magaalada Gaalkacyo. Socdaalka madaxweynaha waxa ku welinaya Senator Cabdi Qaybdiid, xildhibaan Ubax Tahliil iyo wasiirka amniga dowlad goboleedka Galmudug Axmed Macalin Fiqi. Garoonka diyaaradaha waxa ku soo dhaweeyay gudoomiyaha degmada Gaalkacyo ee Galmudug iyo qaar ka mid ah bulshada gobolka Mudug. Soo dhaweyn kadib madaxweynaha waxa loo soo galbiyay gudaha magaalada Gaalkacyo halkaas oo madaxweynuhu uu kula kulmi doono waxgaradkii saraakiisha ciidamada qalabka sida. Socdaalka madaxweynaha iyo mas'uuliyiinta la socda ay ku yimaadeen Gaalkacyo ayaa asalka ku haya abaabul dagaal oo ka dhana xogaga Al-Shabaab oo ka socda deegaanada dowlad goboleedka Galmudug. Madaxweynaha iyo mas'uuliyiinta kale ayaa lagu wadaa inay gaaraan degmada Wasil halkaas oo ay ka socdaan abaabul dagaal oo ka dhana Al-Shabaab. Isbuucan horaantiisa ayay ahayd markii xubno ka tirsan xogaga Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen ciidamada daraawiisha dowlad goboleedka Galmudug ee ku sugan degmada Wasil. Dagaalkaas oo ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Wixii inta ka dambeeyay dowlad goboleedka Galmudug ayaa waday abaabul ka dhana sidii Al-Shabaab looga saari lahaa deegaanada xilligan ay gacanta ku hayaan kana tirsan deegaanada dowlad goboleedka Galmudug. Maxamed Cabdullaahi CD, warbaahinta Dalsan, Gaalkacyo.